maalmaha adduunka ku soo mara maalmihii ugu qaalisanaa ayaa ku soo haya ilaahay baa ku dhaartay wal fajri wa layaalin 'ashr layaalil 'ashr tobanka ilaahay uu ku dhaartay oo si gooni ah uga doortay maalmaha kale iyo habeenada kale waxa weeyaan ahamiyad arrinkaas uu leeyahay wayna soo guuriyeen ahlu cilmigu inay yihiin tobanka maalmood ee bisha Dhul-Hijja ugu soo horeeyay ilaahay wuxuu leeyahay yashhadu manaafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayaamin ma'luumaat maalmo macluumaad oo la yaqaan ilaahay inay xusaan maalmahaas macluumaadka waa maalmahaas ina soo haya nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ma min ayaamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر مجران مالمه عمل دحدود الله سمايه أو وناكسن وكفض لبدنيا إلهي حقي سلوغا قلقعي البدنيا مالمها يقع صحابة السؤال بويدية ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كإلهي وددي سلوغو جهاد ميون المالمهان كفضل بدني مركز النبي يقول ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كإلهي وددي سلوغو جهاد أنا ما قاريه حلقه في مركز لقى صار إلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ننبحي نفتي سي مالكي سي لبدا وجهاد كجيي wax ka soo laabtana ay jirin maalkiisana waa ku gacan galay asaga naftiisana waa ku gacan gashay ninkaas fadliga ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ayaa gaari kara maalmahan iyaga wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ma min ayaamin a'zam 'inda Allah wala ahabbu ilayhi min al-'amal fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr maalma ilaahay agtiisa ka weyn badan amal la sameeyo looga jecel badan yahay ma jira maalmahan fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid maalmaha dhexdooda waxa badisaan dhikriga ilaahay takbiirta Allahu akbar tahmida alhamdulillah tahliisha la ilaha illa Allah kalimaadkaas dhikriga ilaahay ah maalmaha dhexdooda badiya maadaama maalmaha ilaahay agtiisa ugu weyn ay yihiin maalmahan waxa ku jira yawmul arafa waxa ku jira yawmun nahr waxa ka sii dambayso ku xigta maalinta 11aad ee yawmul qarl yiraahdo wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam inna a'zama al-ayami 'inda Allah yawmun nahr thumma yawmul qarl maalmaha ilaahay agtiisa waxa ugu weyn maalinta yawmun nahr ah waa maalinta tobnaad oo ciid ah oo xoolaha la qalahay oo adduunyada daafaheeda dhiigga la daadinayo ilaahay dadkii loo daadinayo waa maalinta amalka xajku ugu balaaran yahay ugu weyn yahay waxa ku xiga maalinta ka dambaysa yawmul qarl yiraahdo yawmul qarl waxa loogu magacaabay waa maalinta sugnaanta xujaydu ay sugnaanayaan oo aynan ka tagi karin minawi maalinta arafa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam maalinta arafa ma min yawmin akthar min an yu'tiq Allah fihi 'abdan min an-nar min yawm arafa maalin ilaahay agtiisa ay ka badan yihiin dadka naarta laga xoreeyo ma jira maalinta arafa cadaabka dadka maalin la xoreeyo waxa ugu badan maalinta arafo dadka ilaahay agtiisa cadaabka looga xoreeyo oo waxa weeye maalinkaas ilaahay subhanahu wa ta'ala khalqigiisu u soo dhawaanaya dunuwan yaliqu bi jalalihi wa 'azamati sultanihi dhawaansho ilaahay jalaalkiisa iyo 'azamadiisa u qalma sidoo yahayna anagu aanan aqoonin ba ilaahay u soo dhawaanaya marka ma saa ilaahay malaa'ikta ugu faanaya oo leeyahay fiiriya adoomadayda daafaha adduunka ka yimaadeen ayagoo boor laho basaasan
markhaati waxaan ka noqotaan inaan dembigoodii dhaafay hadday niyadda kaaga jirtay meeshaa Carafa inaad taagan tahay sanadkan oo sanadkii hore ku xisaabtamaysay caqabadna ay kugu timid niyadaadii wanaagsaneed ajarkeedii baa leedahay waxa aad rabtay inaad ku xajisidna masaakiinta iyo fuqarada si oo bixi masaajidda iyo khayrka ku dar khayrka uga qayb qaado ajarkaagiina waa leedahay sanadka dambe haddaa gaartidna aad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu fududeeyo oo ay kuu sahlanaato nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qablahu waalatii bacdah ilaahay siyaamka yowma carafa aan soomayo waxaan ku ajar xisaabsanayaa ilaahay sanadkii hore dembigiisa inuu igu dhaafo midka ka dambeeyana ilaahay igu dhaafo ayaa soonka maalinkaas yowmu carafa aan waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala oga ajar xisaabsanaya maalmahaas qaaliga ah oo bishaa barakaysan ku dhex jira waxa weeyaan waxay u baahan yihiin qofku inuu ku talagalo inuu istighfaar iyo toobadkeen iyo khayr iyo wanaag ula yimaado waxaa la yidhi maalmahan iyaga ah ahlu cilmigu maxay adduunyada maalmaheeda ugu fadli bateen waa maalmo ay ku kulmi karaan ayaga dhexdooda soonkii iyo salaadii iyo sadaqadii iyo xajkii laakiin maalmaha kale adduunyada soonkii waa la heli karaa sadaqadii waa la heli karaa salaadii waa la heli karaa laakiin xajkii lama heli karo marka xajku asagoo intaas kala wata wuxuu ku jiraa maalmahan buu ku dhex jiraa walidaalika abu ibnu rajab alxambali wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa iyo fadligiisa qof kaste oo mu'min ah qalbigiisu wuxuu u hiloobayaa oo jecel yahay sanad kaste inuu kacbada ilaahay tago ayaa qalbigiisu jecel yahay meel kasta oo adduunyada ka joogo qalbigiisu wuxuu jecel yahay inuu ilaahay beydkiisa tago soo arko kuna soo cibaadaysto dadkii maadaama aysan wada awoodin ayaa qofkii awooday waxaa la yidhi adiga sanadkii hal mar buu kugu waajibay xajku tag noloshaada hal mar kugu waajib waana awoodaa tag adiga asagii xagga markuu aaday inta ka hartay baa badan ayagiina waxaa la yidhi 10 maalmood waa 10 waxaa laga dhigay adduunyada ugu fadliga badan xaajigii xaggu jooga adiguna gurigaaga adoo joogtid camalka aad samaynaysid wuxuu noqonayaa kan mujaahidku uu sameynaya mid ka fadli badan maadaama qalbigaagii xagga jiciyaha aadan joogin acmaal mudaacafaad ah oo fara badan oo laalaaban ayaa lagugu siinayaa maalmaha furaska laga faa'iidaysto maalmaha waxaa ka mid ah qiraa'atu lqur'aan akhriska qur'aanka in aad loo badiyo oo qofku qur'aanka isku dayo in wax badan akhriyo waxaa ka mid ah dikriga ilaahay takbiirta iyo tahliisha iyo taxmiidka inuu badiyo qofku laa ilaaha ila allah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنه كل اليوم بديو وحكم إذا الصدقة قفوا إنه واحد بحيه أو سيدي واحد بحين جري سكبضا خير كان والله بالله وكد داله وحويان مساكين تينو قودي حكم إذا الصيام صومكي وفضل سؤال وين بدأ كل جود بالصوم سجالك الصوم إلى المانطة طبعاً ما سوي كرتيده وعيد صار الله بقى تنكذب بيسنا وعيد تنكذب بيسنا وعيد صون كبرك واحد صونتا مع المها سجالك إلى عرف اللي جاري الصون كصون قرآن كأخذ كسبادي صدقة بدي صاحب هذا الصومن أفوري خير كإسجاء وحكوسه اللي هي هذا عن كعبد إلهي تجين جهاد كينا أنجلين إلى ديالتي فضل جهاد كولها متكوي إلهي كوسيه سبحانه وتعالى إلهي أطوّت كان وحي دم كان دعي وحي حمان كان دعي مع المهان مع المقالي وصوص عدوية فرصة يا وقت السي وقت جاء كم ده إلهي نبري إنه كوافتيه سبحانه وتعالى
إلهي سبحانه وتعالى هنا بركيه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.